waxa goor booqasho ku tagay dugsiga tababarka ee Turkison ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ay markaa wehelinayaan wasiirka gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya. Booqashadan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar kala duwan ku soo qaadayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Guud ahaan waxa uu ku soo gaafureegay dugsiga tababarka ciidanka xoogga Soomaaliya ay dawladda Turkiga leedahay Turkison. ciidamada aad u tiro badan ayuu ra'iisul wasaaraha kula hadlay goobtaas. Waxa uuna sheegay in howlo fara badan ay u yaalaan lagana sugayo xoreynta dhul aad u badan oo ay weli gacanta uga harsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiil xigeenno oo ayagana halkaasi tababar kaga socday. Ra'iisul wasaaraha ayaa socdaalkiisan waxa uu ku wajahnaa in markaasi wajiga labaad ee la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab uu goor dhow ama maalmahan soo aadan furmi doono, iyadoo markaasi taliska loo weecin doono gobolka Mudug. Madaxweynaha ayaa saldhigan doono gobolka Mudug, halkaasna waxa ka bilaaban doona wajiga labaad ee dagaalka lagu jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab sida wararkan ku helino. Haddaba booqashadan ayaa waxay kaga dhigan tahay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa gaashaandhigga sidii markaasi loo dardargelin lahaa ciidanka halkaasi tababarka ugu socdo oo dhawaan uu soo gabagaboobi doono sida wararkan ku helino, isla mar ahaantaana dagaalka lala geliyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay qayb ka noqon doonaan. Daawaday waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii halkan aad soo gaartay followna soo dhe, qaybta YouTube-kana subscribe noo dhe, nala joog mar walbaba, noqona saaxiibka Cabdullaahi Yare. Ra'yigaaga waa inoo muhiim, qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb wax ra'yi aad qabto. Ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka yaga.